بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة رمضان iyo warkeedu kitaabkiiyo sunnadana waa ku badan yahay duruusta iyo waxa laga faa'iidayo casrigan dambena dee cilmigaaba u janjeedha xalay bise habeen hore waxaan dhegaysanayey nobel pricekii 2016kii nin jabani soo qaatay oo soonka ku qaatay nobel price aclى الجائزة في العالم ay bixiyaan sayniska oo nobel priceka lagu siiyey markuu jidhku soomo maxaa dhaca ilaa xad uu leeyahay qofkii raba inuu caafimaadkiisa si caadiya u fiicnaado wuxuu u baahan yahay toddobaadkii inuu 2 casho soomo dee walba inagu sunnadaynu ku haynay toddobaadkii in 2 casho la soomo isniin iyo khamiis أحد العلماء ka warramaya wuxuu lahaa waxaan eegay buu yihi 3 sannadood ee ugu dambeeyey maraakista caalamiga buxuusta laga qoray soomka 900 oo baxfiyo cilmiya laga qoray 3 sannadood ee ugu dambeeyey maraakis العلم العالمية waxyaabaha ku saabsan soomka 900 oo baxfi ayaa laga qoray idan maanta kuma talagelin ramadaan taas iyo fawaa'ideeda iyo waxaynan ka warramo waxaan iskaga talagalay waraa ogsoonaydeen inaan idinku adkeeyo العشر الأواخر tobanka dambe nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam muxuu qaban jiray iyo see loo cibaadaystaa waa war culammadu in badan ay idin kala hadleen laakiin min baabi ta'kiid iyo in la isugu celceliyo si ay qalbiga u degto ama ay camal u noqoto ama ay dhaqankeenna uga muuqato ayuun baan ku talagalay inaan idin idhaahdo intii culimmadu sheegaysa inaan ana idinku sii adkeeyo tobankan cashee ramadaanta ugu dambeeya waxaynu ognahay bisha ramadaan inay tahay bisha ugu fadli badan sanadka isla markaa waxaynu ognahay tobanka habeene ugu dambeeyaana inay ramadaan ugu sii fadli badan yihiin yani culimmadu waxay yidhaahdaan sanadkao dhan marka la ysku daro haddii 10 la qiimeeyo maalmaha markay tahay bay culimmadu yidhaahdaan 10 maalmood ee dilxijo baa ugu fadli badan habeenada markay tahayna bay yidhaahdaan 10 habeen ee ramadaan baa ugu fadli badan marka 10kan cashe ee ramadaan ugu dambeeya habeenadeeda ayaa waxay yihiin 10 habeen ee sanadkao dhan marka la ysku daro ugu fadli badan haddana waxaa ku sii jira habeenka dee sanadkao dhan marka la ysku daro isaguna ugu fadli badan idan waa bishii u fadli badnayd iyo 10kii habeen ee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadkao dhan ugu fadli badnaa oo 10kan laga dhex filayo ayaa jira haddaba hadyigii nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi الsalaaةu wasalaam ku saliya nebiga inuu ku dadaalo daacada iyo ilaahay u dhowaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadkao dhan yani 10kani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadkao dhan intiisa kale si awgeed bay imaamu muslim xadiidka soo warinayo lmu'miniin caaisha radi allahu canha waxay leedahay kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yجtahidu fi اlcashri اlأwaakhir maa laa yجtahidu fi gayri wuxuu ahaa nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam 10kaa habeenee ugu dambeeya bisha ramadaan mid dadaala si aan u dadaalin sanadka intiisa kale oo dhan idan 10kan habeen wuxuu qofka muslimkii u baahan yahay awood wuxuu leeyahay oo dhan iyo raganimo iyo tamar iyo xoogba inaad isugu geyso 10kaa habeen cibaadadooda weliba
caaisha waxay leedahay hadyigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiidka saxiixeynku warinayaan kana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam إida dakhala alcashru shadda mi'zarah وأحyaa leylah وأyqada أhlah. imaamu muslimna riwaayaddiisu waxay siyaadinaysaa wajadda washadda mi'zarah. caaisha waxay leedahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam tobankan habeendan hadday usoo galaan guntiguu dhiisha iskaga dhigi jiray halkay soomaalidu tidhaahdo guntiguu adkaysan jiray habeenkiisana wuu noolayn jiray reerkiisana wuu toosin jiray bay caaisha leedahay. haddaba isagoo nebi maxamed marka horeba cibaado badnaa calayhi الsalaatu wasalaam oo habeenadii siduu u tukanayo gumaddu berari jirtay oo ay caaisha ku lahayd ilaahay rasuulkiisiiyow adiga dembigaagii hore iyo kii dambeba waa la dhaafaye maad naftaada sidan ka daysid maad nasatid oo kale ow lahaa haddii ilaahay dembigayga dhaafay miyaanan noqonaynin addoon mahadnaqa iyadoo dhaqankiisu uu kaa ahaa ayaa haddana tobankan markay soo gaadho arrinku wuu ka gedisanaa habeenkiisa wuu noolayn jiray baa la yidhi. caaisha ayaa waxay leedahay xadiidka nisaa-i warinayo laa aclamu rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam qara'a alqur'aana kulahu fi leyla walaa qaama laylaة xataa asbax walaa saama shahra ramadaana kaamila walaa saama shahra kaamila gayra ramadaan. ma ogi bay iyadu tidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo habeen siduu u waday ku soo wada jeeday cibaado ama qur-aanka habeen qudha dhameeyey ama bil aan bisha ramadaan ahayn wada soomay garan maayo bay leedahay. marka axya leyla kula maxaa looga jeedaa? riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen inuu habeenkao dhan noolayn jiray laakiin culimmadu waxay leeyihiin gaalibu leyl habeenka inta ugu badan leh ayuu habeenada noolayn jiray. horta in habeenkii la cibaadaystaa iyadu de waa calaamadaha nebiyada iyo dadka saalixiinta ah. ilaahay muxuu qur-aan ku tilmaamaya tatajaafa junuubuhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca wamima razaqnaahum yunfiquun. dhinacooda dhulka ka dheeraada baa ilaahay leeyahy iyagoo rabbigood baryaya u cibaadaysanaya oo cadaabkiisana ka cabsanaya iyo ciqaabtiisa naxariistiisa iyo jannadiisana hunguri ka hayo ayaa dhinacoodu dhulka ka dheeraadaa baa ilaahay leeyahy. waxaa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya dadka saalixiinta ee jannada gala ina almuttaqiina fi jannaati wacuyuun. qoladaa maxuu yahay calaamaadka lagu yaqaanaa? inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin baa la yidhi. waxay ahaan jireen calaamaadka lagu yaqaanay waa kan adduunka markay joogeen dad ixsaan sameeya bay ahaayeen. kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilahay yidhi habeenkii in yar bay seexan jireen wabilasxaari hum yastakfiruun. waqti suxuurka marka la gaadhana istikfaarta bay bilaabi jireen. wa fii amwaalihim xaqu liلsaa'ili wاlmaxruum. hantidoodana xuquuq bay ku lahaayeen go-anba kuwa wax weydiista iyo kuwa wax mahaysatada ahiba. idan asliyan ayuu habeenkii in la tukadaa waa dhaqanka nebiyada, waa dhaqanka saalixiinta, waa dhaqankii saxaabadii. ilaahay saxaabada markuu ammaanayay muxuu ku ammaanay? muxamadu rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaaء calى اlkufaari ruxamaaء baynahum taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahar الsujuud. salaad badni baa ilaahay ku ammaanay. salaad badni ayaa lagu ammaanay iyo muslimiinta inay u naxariistaan gaalkana iska dhiciyaan. waa calaamadda lagu yaqaano dadka raba maqaami اlambiyaai waالshuhadaaءi waالsaalixiin inay gaadhaan. wiilkii yaraayee nebiga calayhi الsalaatu wasalaam u shaqeeyey ee uu nebigu isyidhi u abaalgud. nebigu calayh الsalaatu wasalaam cid kastoo wax u qabatay wuu u abaalgudi jiray, abaallaawo ma ahayn.
dabeetana wiilkiibuu u yeedho wuxuu ku yidhi war wax weydiiso salni wax weydiiso aan wax ku siiyey wiilkii yaraa wuu soo fekeray dadkan hamadoodu siday u sarraysay bay tilmaamaysaa iyo waxay raadcaynayaan wuxuu ahaa waa nin dhallinyaro ah oo nebi maxamed u adeegaya laakiin hamigiisu adduunkan wuu ka weyn yahay adduunkan dhammaantii kuma filla hamigiisu waxa weeyaan janno jannadana xagga hoose ma rabo wuxuu rabaa janno meelo sare nebiga meeshuu galaya iyo agagaarkeeda inuu joogo dabeetana wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna jannada inaan saaxiib kugula ahdo adduunka waa kana waa kugula saaxiib waa kula joogaayo aakhirana jannada macaaga inaan noqdaa baan doonayaa ninka hungurigiisu halkaa joogo camalka la yidhi waad ku gaadhaysaa waa maxay nebigu wuxuu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waxaad iigu gargaartaa haddaba haddaad kaa raadcaynayso adiguna sujuudda badi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuuddaadu salaadkaagu ha bato idan axya leyla marka la yidhaahdo fii ramadaan hadduu markii horeba nebiga sifadiisu caynkan ahayd ou salaada saa u tukan jiray ramadaan markay timaaddo ee weliba la ay sii timaaddo tobanka dambe waxaa la yidhi tobanka kan axya leyla habeenkii buu noolayn jiray qaabku u noolayn jiray isweydiinle marka la yidhaahdo awalba waa noolayn jiraye noolayntan gaarkee tobankan lasii sheegaya sifadeedu qaabkuu noqonaya markaa awalan fi shariica salaatu leylka in xagga hore laga tukadaa way bannaantay oo qofku intaanu seexanba inuu iska tukado maca witirkiisa waxaa bannaan saaqda dhexe inuu soo kaco tukado waxaa bannaan salaada subax ka hor inuu kaco oo tukado idan awalka iyo wasadka iyo aakhirka intuba waa bannaantay waxaana la yidhahda nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad raadacayso habeenkii wakti kasta wuxuubaad arkay isagoo taagan haddaad doontana wakti kasta isagoo hurdaad arkay yacni waa isbedbedel intaba wuu samaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin culammadu waxay idhaahdaan qofka muqiimka ah ee mustatiica ah qofka degan ee awooda waxaa u fadli badan xagga dambe ayaa u fadli badan wixii nusleylka ka dambeeya ayaa u fadli badan bay yidhahdaan oo waatii cumar laga sheegaya aharka ah walatii yanaamuuna canha afdalu dee ilahayna qur-aanka wاlmustakfiriina bilasxaar wabilasxaari hum yastakfiruun baa ilaahay tilmaamaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam siduu u tukan jiray caaisha saa xadiidkii aynu soo sheegnay ay ku tilmaamtay waxay leedahay anigu maana arag ramadaan iyo keyrkeetoona isagoo maxay 11 ragcadood ka badiyey laakiin 11ka ragcadood ee nebigu cayn ka ahaayeen innaga haddaad tidhaahdo qof 11 ragcadood baa la tukadaa dee 10 daqiiqo kaga soo baxaya soakaa maaha qoladeenna fogeysaa ee tidhaahda waynu tahajudaynaa waa dheeraynaynaa dee hal jisun baynu akrinaa socaynkaa maaha caaisha waxay leedahay abi salama ibnu cabdiraxmaan ayaa wuxuu weydiiyey caaisha kayfa kaanat salaatu rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama fii ramadaan nebiga salaadiisu ramadaantii siday ahaan jirtay caaisha waxay ku tidhi ma kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama liyaziida fii ramadaana walaa fii gayrihi calى 11 ragca ramadaan iyo keyrkii toona 11 kamuu badin jirin aynu sheegi riwaayaad kaloo sheegaya 13 iyo wax la mid ah 11 kamay badin jirin bay xadiidkan caaisha ku tilmaamtay laakiin siduu u tukan jiraa isweydiinta leh waxay caaisha leedahay yusalii 4 laa tas'al can xusnihina wa tuulihina 4 buu tukan jiray iyaga hay weydiinin bay tidhi quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiini quruxdooda iyo dherarkooda hay weydiini oo waxaa la yidhaha nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxay caaisha leedahay xadiidka horta dhammeeyo uma yusalii 4 buu haddana tukan jiray laa tas'al can xusnihina wa tuulihina uma yusalii 3 bay tidhi dabeetana 3 buu tukan jiray xadiidku intaa uu ka rooyey mukhtasar shamaa'il
mukhtasir shamaa'il buu imaam ilalbani ku saxiixinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam bal qirada waxaa kaaga filan xadiidkii xudayfe iyo ibnu mascuud iyo axaadiista ay warinayeen habeen inuu salaad isu taagay dabeetana ay ku xidheen saxaabi baa ku xidhay dabeetana albaqruu bilaabay buu yidhi markaasaan sidhi buu yidhi de kolley 100 meelahaas markuu gaadho ayuu dhammayn doonaa albaqraba waa dhameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam albaqri waa 2 jis iyo dheeraad 286 aayadood waa dhameeyey kadib aan sidhi buu yidhi hadduu rukuuci markaasuu bilaabay buu yidhi suuratu nisa haddana markaasuu dhameeyey markaasuu dib u soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu haddana aali cimraan bilaabay markaasuu dhameeyey waa ragcad maaha 11 kama warramayno waa ragcad buu akhriyayaa maxay 5 jis iyo dheeraad caaisha waxay leedahay kaana yasjudu sajda qadra maa yaqra' axadukum 50 aaya sujuudda nebi maxamed waxay ahaan jirtay bay leedahay inta midkiin 50 aayadood ka akhrinayo hadda jiskuba waa ilaa 140 aayadood meelaha matalan jiska albaqri 150 iyo wax ka yar that means waxa weeyaan thuluth jus inta laga akhrinayo 50 aayadood inta la akhriyi karo ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sujuudiisu ay ahayd sideedaba salafu saalix saxaabadii iyo nebiga iyo dadka wanaagsanaa wardigooda iyo qur-aankooda iyo salaad akhriskooda way isku dari jireen in badan oo ka midi wax lagu wardiyo maxaa u badan oo u fiican subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar soo maaha salaadana acmaasha la qabto saddexda tan iyo qur-aan baa u fiican wax lagu wardiyo soocaykaa maaha salaaduna intaasumay ka koobantay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar maanta o dhan waad wadaysaa soo maaha dee rukuuc iyo sujuud iyo ictidaalla maxaad samaysaa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim samic allahu liman xamid intaasumaad wadaa tasbiixaad iyo taxmiid iyo takbiir ayaad salaada wadaa iyo qur-aan la akhriyo waa wardigu ugu fiicnaa oo ficil salaadeedna ah wardigaasoo marna lala rukuucayo marna lala sujuudayo weeyaan salaadu sida awgeed nebiga calayhi salaatu wasalaam 7 wuu tukaday oo 9 buu tukaday oo 11 buu tukaday oo 13 buu tukaday oo ka yar buu tukaday laakiin lama soo naqlin 13 wax ka badan oo isagu tukaday laakiin dee salaadihiisu kuwaasay hayaan haddaba culimmadu waxay leeyihiin sheekh mustafa alcadawi wuxuu soo naqlinaya waxay culimmadu yidhaahdeen buu yidhi sifadu hadday nuqsaan inaga gashay cadadka waa lagu kabi karaa u fiirso ereygaa haddii adigu 11kaagu aanay la mid ahayn ama la nooc noqon haddaad horta kuwii nebiga u ekaysiin karto cadadan wa sifatan iyadaa fadli badan cadadan wa sifatan tira ahaan iyo sifa ahaanba haddaad sunnadii nebi maxamed raacda calayhi salaatu wasalaam iyadaa fadli badan culammadu waxay idhaahdeen haddaad sifadu kaa gaabato oo aad intii sujuudnaan kari weydo ama qur-aanka intii akhriyi kari weydo waxaa lagu kabi karaa bay idhahdeen ragcadahoo la badiyo oo xaggay ka keeneen waxay yidhaahdeen cibradu waa zamanka aada cibaadaysanaysee cadadka ragcadda maaha bay dhaheen u fiirso erayga falcibratu bizamani اlqiyaam walaysat bicadadi rakcaat bay idhahdaan meesha danta la leeyahay waxa weeyaan imisaad ilaahay hortaagnayd ee maaha imise ragcadood baa tukata waxaa dhici karta qof 7 ragcadood ilaahay hortaagnaa inuu ka badan yahay 20kaa tukatayba waxaa dhici kara qof 9 ragcadood tukaday inuu ka badan yahay intuu cibaadaysanayay maxay intaad adigu tukatayba cibradu bay leeyihin waa zamanka oo maxaa daliila waxay idhahdeen waxyaabaha ku tusiya waxaa ka mid ah ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay qum اleyla ya ayuha اlmuzamilu qum اleyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu aw zid calayhi waratil اlqur'aana tartiila waxaa lagu yidhi nebiga calayh الsalaatu wasalaam habeenkii istaag in yar mooyaane nuskii istaag ama wax yar ka yaree ama wax yar ku dar waratil اlqur'aana tartiila
aayadda dambe ee nasakhday aayaddan say culimmadu sheegayana maxay sheegaysa ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min ثuluثay leyli wanisfa wa ثuluث idan cibradu waxay leeyihin waa zamanka waxaa kaloo taa caddaynaya bay leeyihin xadiidkii sheegayey saxiixeynka ku yaalay ee sheegayey maxay salaada ilaahay ugu jeceliyay salaatuleilka awalan marka faralka laga yimaado dee salaad la tukado salaatuleilka u fadli badan faralka marka laga yimaado oo waa kii nebigu laha alayh الsalaatu wasalaam bacda almaktuuba waxaa ugu fadli badan le maxay salaatuleilka salaatuleyladuna way kala fadli badantahe keeba xagga alle loogu jeceliyay tii nebi daa-uud buu nebigu yidhi calayh الsalaatu wasalaam wa axabu الsalaati ilى اllahi salaatu daawuuda calayhi الsalaam salaad la tukadana waxaa loogu jeceliyay baa la yidhi tii nebi daa-uud uu tukan jiray nebi daa-uud muxuu tukan jiray kaana yanaamu nisfa leyl habeenka inta hore wa iska seexan jiray waataynu le xagga dambe la tukadaabaa fadli badan laakiin waa bannaantay xagga horena in la tukado saan aynu taraawiixda u tukanoo kale taraawiixdu waa salaatuleyl la qadimay u kaana yanaamu nisfa leyl habeenkii nus buu seexan jiray wayaquumu ثuluثa saddex meelood oo meella wuu taagnaan jiro wuu tukan jiray wayanaamu sudusa sudusna wuu sudusku waa lix yacni lix meelood haddaad u qaybiso habeenka lix meelood haddaad u qaybiso saddexda meeloodoo ugu horeeya wuu seexan jiray saddexda meeloodoo ugu horreeya waa nus markaa labada meeloodee ku xigana wuu taagnaan jiray halka meele ugu dambeeyana wuu hurdi jiray tusaale haddaad tidhahda habeenku maalan haddaynu idhahna habeenku waa 9 saacadood 9kaa saacadood 4 iyo badhka hore wuu hurdayaa kow waa nuskii ثuluث buu haddana soo jeedaya 9 saacadood ثuluثkooda waa maxay waa 3 saacadood 3 saacadood buu haddana tukanayay kadib buu haddana suduska dambe waa maxay waa saacad iyo badh marka 4 saacadood iyo badhoo horuu seexday 3 saacadoodoo dambuu taagnaa saacad iyo badh dambuu seexday habeenkiisii 6 saacadoodna wuu hurday 3na wuu taagnaa weeyaan habeenkiisii 9ka saacadood ahaa 6na wuu hurday 3na wuu taagnaa idan culimmadu waxay leeyihiin xadiidkan iyo aayaddan qur-aana markaynu eegno waxaynu ka fahmaynaa cibrada meesha lagu xisaabtamaya inuu zamanka iyo inaan ragcado ahayn dhalinyarada dambe fuqahada qaarkood iyagoo raacaya waxay 11 un haladkoodo laakiin dee 11 bidhbidha haddaad tukato ma aha 11kii wasniga samaynayay 11kaagu 3 saacadood ama 2 saacadood may qaataan ilaahay qur-aanka markuu tilmaamay kuwa ilaahay isu taaga waxa la yidhaha aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida waqaa'ima aanaa baa lagu tilmaamay yacni saacaat alleyl habeenkii saacadiisa taagan ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولذلك وحو كسر نقلنا إياه الشيخ مصطفى العدوي ابن تيمية أما ابن الحجر العسقلاني شيخ الشافعية ده أن النقص في صفة القراءة يزداد في عدد الركعات بإله قراءة هذا كوبناته حافظ متيت أما waad xanuunsanaysaayoo in badan ma taagnaan kartid ama waad daciif baato waad gabowdayoo in badan ma taagnaan kartid jirto dadkii dhallinyaronimadoodii ku traingareeyee taagnaan jiray iyagoo gaboobay ba taagnaadaan culimada muslimiinta qaar baad arkaysaa 9 jiraa aan arkayay ramadaanta mid tukinaya taraawiixda 104 jiray ul yar buu ku taagay ul buu haystaa waxaa la ii sheegay axad alculamaa Mauritania ma kici karo salaada marka la tukanaya baa la yidhi laba inana uu dhalaa garba qabta dabeetana waa la taagaa waa la sii daayaa markaa salaada intuu tukanayo oo dhan caadu u wada markay salaadu dhammaataabuu isku dhacaya haddana yacni ilaahay baa uu xoojiyey inaanu salaaddii uu sidii u taagnaan jiray inaanu ka daciifin xataa isagoo gaboobay oo kici kari loo la kicinayo hadhow inta salaadda uu ku jiro isagaa kackacya cidina kicin mayso markay dhammaatana wuu isku dumayaa baa la yidhi idan haddii si uun ay dhacdo tamartaadu inay keensan weydo inay qiraa'aadkaagu dheeraadaan waxay culimmada tani leeyihiin ragcadahaad badsan kartaa haba gaagaabnaata ragcaddaadii 10 daqiiqaba ha qaadatee ragcadaha maxay badi bay leeyihin
ibn cabdilbar alcallaama ibn cabdilbarina waxaabuu ka soo naqlinayaa ijmac sheegaya masaladatan ajmaca almuslimuuna calى annahu laa xadda liakari rakcaati fi qiyaami اleyl buu ka soo naqlinaya wallahu aclam ijmacaasi waa saxay soo duduub nebigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo salaadihiisuba dheeraayeen marka horeba salaadihiisu dheeraayeen kuwa sunayaasha uu tukanayo aynu ka warramaynaa waayo sunnada tan qofku waa amiirun calaa nafsi cidna kuma xidhna cidna qasab ma aha dadkuna waa iskaga tegi karaan qasab ma aha laakiin isaga siisa u tukanayay idan nebigu calayh الsalaatu wasalaam waxa ugu badanee laga sheegay inuu tukaday waa 13 siday caaisha iyo ibnu cabaas iyo zayd ibnu khalid aljuhani maa xaasiluhu waxuu sheegay marka la isku dardaro say sheegayaan 13 baa laga sheegaa culamadu waxay idhahdaan 11 bay caaisha xaggaa ku sheegtay isagoo ka badiyey maana rag 13na waa la sheegay waxay tilmaamaysaa bay leeyihin in laga badiyey waxaa kaloo ay sheegayaan culamadu axaadiistii sheegaysay salaatu leyli mathna mathna nebigu markuu yihi maftuux buu ka dhigay salaada habeenkii waa laba baa loo tukanaya ee haddaad waa beriga ka cabsato inuu ku soo gaadho un saad u wado labadaada faidaa khashita الصubx faawtir biwaaxida buu nebigu yihi hal xabo kuwii tirso wuxuu nebigu leeyay layusalli axadukum nashaata faidaa fatara falyaqcud midkiin ha tukado inta uu nashiidka yahay intuu firfircoon yahay markaad daasho iska fadhiisaa lagu yihi ninkii doonay maqaamka ambiyada inuu ka daba tago acinnii calىa nafsika bikahrati sujuud buu nebigu ku yihi sujuud badni iigu kaalmee man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla ninka imaamka la tukadaa la yidhi ilaa iyo intuu ka baxayo ka dhammaynayo dadka barh baa imaamka intay bartanka kaga tagaan yidha hadhow baan tukanaya waxaa kaaga fadli badan adigoo la dhammaystaa hadhow haddaad doonayso waxaad doonayso tuko laakiin imaamka ha ka tegin la dhammayso oo hadduu witirsado maxaad yeelaysaa laa ba's la witirso hadhowna salaad bilaa witra u tuko idan ayuha alaxiba culamada badh waa sugayaan sanadada axaadiista sheegaya ubay ibnu kacab inuu 11 tukiyey iyo inuu 23 tukiyeyba waa sugayaan inkastoo sheekh alalbani isagu 23 ka daciifinayo oo 11 kuna asixinayo laakiin culamo kale muxadisiina asixinaysa oo leh labaduba waa haabit idan waxaynu leenahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aslanba habeenkiisa si fiican buu u tukan jiray laakiin waxaa la yidhi ramadaanka siiba 10ka dambe waa nooleyn jiray baa la yidhi wax lagu nooleeyo waxa ugu fiican salaada waayo salaadu hadday kuwii nebiga u ekaato waxay kulansanaysaa qur-aan akhriskii tasbiixdii taxmiiddii tahliishii wixii loo baahnaayo wardi oo dhan baa ku jira iyada wixii loo baahnaayo o dhan oo wardiya ayaa iyada ku jira wax lagu nooleeyo markaa salaatuleilkaa u fiican haddaad isku kalsoonayn oo isleedahay war xagga dambe waa kaa tegi doontaa xagga hore ka noole haddaad raganimadaa isku og tahay oo intaad maalintii u seexato aad is leedahay habeenkii waad kici karaysaa habeenkii noole habeenkii intaad tukan kartaba tuko ha isku yaray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam habeenkii wuxuu kaloo samayn jiray salaatuleilkaan reeraana wuu kicin jiray alaa taquumani fatusalliyaan buu ku lahaa cali iyo faatima waa tan caaisha ku tilmaamaysaa wayuuqidu ahlah ahalkiisana waa toosin jiray waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ilaahayna qur-aanka waa ku tilmaamaya ahalkaaga salaada far oo ku sabra dheh idan ayuha alaxiba habeen buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam soo toosay bay umu salama leedahay isagoo argagaxsan oo leh subxaana allahi maada unzila alleylata min alkhazaa'in wmaada unzila min alfitan subxaana allahi buu nebigu leeyahy caawa maxaa khasnadaha ilaahay nimcooyin laga soo dejiyey maxaa fitan soo degay waryaa toosiye buu nebigu yihi guryaha kan kuwa ku jira waa haweenkiisi buu tilmaamaya guryihii
masaajidka ku xeeraaya sawaaxib alxujaraat yaa toosiye buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam likay yusalliyanna si ay u tukadaan waayo ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira buu nebigu yihi la arkee mid dunida maryo huwan oo asturan oo aakhiro qaawan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam adduunka qof fiican loo yaqaano masaatan loo yaqaano laakiin aakhiro marka la tago aan waxba meel oonin idan waxay leenahay wakhtiyada kaleba nebigu wuu toosin jiray haweenkiisa inay salaad tukadaan laakiin tobankan habeen si gaaruu u toosin jiray weeyaan waxay caaisha xadiidkaa ku tilmaamaysay washadda almi'zar shadda mi'zara maxaa looga jeedaa guntigu adkaysan jiray laba macnoba culammadu way saaraan inay leeyihiin waa kinaaya can الاsticdaadi lilcibaadaةi واlijtihaadi fiiha ziyaadaة calى اlmuctaad wamacnahu الtashmiir fi اlcibaadaat yani in la leeyahy waa kinaaya waa sarbeeb laga tilmaamayo sida uu cibaadada ugu dadaali jiray ee uu uga badin jiray intii caadada u ahayd oo markaa halkay soomaalidu yidhahdaan guntigu hebel dhiisha iskaga dhigay yani waa u xaydxaytay waa u faytay inuu arrinkaa qabto culamada badhna waxaabay ku fasiraan oo ay leeyihin shaddu lmi'sarku waxa weeyaan mubaaxaadkii oo laga tago oo waa maxay haweenku ka dheeraan jiray weeyaan dee wuu ictikaafi jiray qofka muctakifkaana waa maxay haweenka dee looma tago walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid baa ilahay yihi haweenka ha u galmoonina idinkoo maxay masaajidda ku ictikaafsan idan tobankan inuu cibaado u xidhxidho waxa kuu tilmaamaya wax wakhtiyada kale mubaax ahaa ama cibaadaba ahaa haweenaydaada xalaasha aad ku qabto inaad u tagtaa waa nooc min alcibaada ajar baa la ysaga qoraa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laakiin tobanka kan cibaadada ka fadli badan baa la rabaa inaad samayso tobanka kan cibaadada ka fadli badan leh sidaa awgeed buu xataa haweenka wuu ka hijroon jiray oo wuu ictikaafi jiray marka waxay tilmaamaysaa xataa waxyaabihii mubaaxaadka ahaa oo ictikaafku markaa waa maxay ictikaafku kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh waalih wasalam yactakif alcashra alawaakhira min ramadaan ibnu cumar xadiidka warinaya waa ku tilmaamaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ictikaafi jiray tobanka ramadaan u dambeeya caaisha waa tale kaana nabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan xata tawafaahu اllah uma اctakafa aswaajuhu min bacdi xadiidka saxiixayn ku yaala nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa ictikaafi jiray tobanka ramadaan ugu dambeeya ilaa iyo intuu ka dhimanayay bay leedahay kama tegin isaga dabadiina bay tihi haweenkiisaa ictikaafi jiray ictikaafku weer kooban haddaynu ku tilmaamno macdaneedu waxa weeyaan qofku inuu cibaado isu xidho oo mubaaxaadkii ka yimaado intuu masaajidka yimaado inuu yidhaahdo ka bixi maayo masaajidka oo muxuu ka yimi markaa waxyaabo badan oo mubaax u ahaa haweenkiisii wuu ka yimi haddaad haweenkii ka timi maxaa kale la rabaa inaad ka tagto waxay culammadu yidhahdaan fuduuli اlkalaam wa fuduuli الطacaam wa fuduuli الnowm waxaasoo dhan waa inaad ka tagtaa bay idhahdeen waa inaad iska daysaa cunada badnideeda cunadu hadday kugu badato culayska kugu badanayo iyo hurdada iyo wax lamida yarayso hadalkana jooji hadalka waxaan wardi iyo cibaado ahayn ka bax dadka barh baa intay ictikaafaan sheeko un bilaaba oo maad suuqaagaba iska joogta haddaad sheekeynayso haddaad sheeko u wadi lahayd qolaa internetkii iska soo daba rarta oo intuu ictikaafo ayuu internetka wadaa oo haddaad webajyadii iyo wixii gelayso maad magaaladaba u shir tagtid ila waa shirkiisii hunay asalku waxa weeyaan ictikaafka macnihiisuba waxa weeyaan wixii markii aad joogtay mubaaxa iska ahaa baad rabtaa inaad ka tagto oo xaggaad ku socotaa waxaad rabtaa inaad gaar u noqoto cibaado waxaad rabtaa inaad tobankan habeen iyo tobankan maalmood gaar u noqotid shaqadaadu inay noqoto maxay inaad cibaadaysato maraad taagantoo tukanayso maraad qur-aan akhriyayso maraad wardinayso maraad nebiga ku salliyayso calayhi salaatu wasalaam inuu wardi ahaado waxaagu
bilbalaayiini walmalaayiin inaad wardigaagu noqdo tobankan maalmood oo halkaad sheekayn lahayd ama war kale akhri war xataa culamadii muslimiintii hore ma taqaanaa culamada badh baa ramadaanta xataa waxay joojin jireen kutubtay akhri jireen kutubtii la akhri jiray kitaabku soo ma aha wax khayr laga helayo culamada badh baa kutubta joojin jirtay imaamu malik iyo waxaa la sheegaa xataa xadiidka uu dayn jiray xadiidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam akhriskiisuu dayn jiray qur-aanku buu bixi jiray waa odhan jireen bishana waa bisha qur-aankay odhan jireen dabeetana cilmiga kale o dhan meel bay iska dhigi jireen cilmiga qur-aanku unbaa bay soo reebi jireen idan meesha raggii ragga ahaa uu kutubta cilmiga intuu ka tago uu xagga qur-aanka usii guurayey ama wardiga usii guurayey haddaad adiguna xagga sheekada usii guurto iyo internetka waa mid subxaanalay soo baxaysaa marka ictikaafkeenu uma ekaanayo ictikaafkii raggaa hore ay ictikaafi jireen haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii uu dhimanayey 20 baab uu ictikaafay baa la yidhaahdaa 20 imaamu zuhri baa laga sheegaa عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله نبي كما تجين بيرسو مدينة ويمي إنه معتكف في هاي إذا طبعا كان هبين إن هذا اعتكافته أو ورديده أو قرآن أخرده أو صلاة كتيد أو هبين يمالين بمساجد كتشوكتيد أيها هبو waxaa kaloo sii muhiima inaad de habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat اlqadr oo uu nabigu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam 10ka dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi iltamisuuha fi اlcashri اlawaakhir waltamisuuha fi kuli watrin buu nebigu haddana fi kuli witrin war 10ka dambe ka raadiya oo haddana waxaa ka sii raadisaan buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam habeenada witirka ah habeenada witirkaa ka sii raadiya oo maxaad qaban waxaad qaban caaisha waxay tidhi oo ilaahay hadduu ila kulmiyo maxaan yeelaa xadiidka ibnu maaja iyo tirmidiba warinayaan sheekh albanina saxiixayee sheegay wuxuu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam quulii allahuma inaka cafuw كريم تحب العفو فاعف عني waxaad tidhaahdaa allahuma inaka cafuw تحب العفو فاعف عني ilaahayow mid wax cafiye baa tahay ee icafi dheh oo cafigana jecel ee rabbow icafi dheh idan habeenkan si aad u raadacayso baryada ilaahay badi baryada ilaahay badi waa habeenkuu nebigu leeyahy fiihi laylaة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم xadiidka أحmed iyo نasaaئي ba warinayaan sheekh الألبانina صaxiixa ku tilmaamaya waa habeen 1000 bilood ka khayr badan sida qur-aankuba sheegay de oo man xurima khayruha faqad xurim buu nebigu yihi habeenkaa ninka khayrkeeda waayaa habeenkaa khayrkiisa ninka waayaa kaasi khayrba waa khayr beele khayr beelayaasha si aanad ugu biirin habeenkan raadce bal 1000 bilood cibaadadood ha dambaysee haddii aada shaqaalo tahay oo lagu yidhaahdo 10 maalmood maalin ka mida haddaad si fiican u shaqaysid 1000 bilood mushaharkood baa lagu siinaya maxaad samayn lahayd haddaba wax weyn oo kaleba lama sheegin waan shaqaalaad ahayd miskiin oo $1,000 $500 $600 wax qaata dabeetana waxaa lagu yidhi 10kana casho maalin baa ku jirta haddaad si fiican u shaqaysid 1000 bilood mushaharkood baad qaadanaysaa 1000 bilood mushaharkood waa imisa dee waa pension baad gelaysaa cimrigaaga inta ka hadhay waa 83 iyo dheeraad 83 sano iyo dheeraad weeyaan haddiiba ay shaqadu markaa ku xidhantay mushaharka gebigiisuba haddaad 10kaa casho maalin ka dhex raadisid haddaad si fiican u shaqayso benshanka aada qaadanayso oo fadhiga lacagta ku imanayso bal ka warran markay janno tahay haddaba waxaa la helayaa iyo acmaasha iyo khayrka la helayaa markay tahay jannooyin ka warran sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow war waa habeenku qur-aanku soo degay baa la yidhi
inaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii laylaةi اlqadri laylaة اlqadri khayru min alfi shahr waa habeenkii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wax ugu sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood waa 3 sano wax ka badan bilaa dheer 3 sano siduu ula mid yahay yani waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa 3 sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yani camalka khayrkee aada shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo 80 sannadood buu maxay ayuu la fadliya u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuu barako raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaalaha waa laga soo barakaystaa meeshan waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barako rabto inaa anzalnaahu fii laylati mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriille uu soo dego xataa jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culamada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii lugawiga ahaa khaliil ibnu ibraahim alfarahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfarahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igtaa dhulku cidhiidhi ku noqda idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega waa hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgelyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabad galaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kulu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socda oo dhan lasoo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeenuu nebi moxamed leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu nebigu yihi man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waman qaama laylaة اlqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih xadiidku 3 shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana واxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo طaacada alle u ikhlaas samaynaya واxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaana واxtisaabana dembigiisaa la dhaafaa habeenka kana si gaara ninka tukada habeenka laylaة اlqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa baa la yidhi gufira lahu ma taqadama min denbi idan ayuha alaxiba waa habeenkaasi qadarkiisi uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi inuu xoog u raadceeyo cibaadaadka ugu badan ee 10kan la sameeyo ay culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhriskiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadabburkiisaba la badiyo waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi الsalaaةu wasalaam jibriil baa intuu u yimaaduu bisha tan qur-aanka la akhriyi jiray oo la daraasayn jiray sanadkii u dambeeyeyna 2 goor baabuu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyay culammadii muslimiinta ahaydee ka dambeysayna waa ku dadaali jireen inay qur-aanka akhriskiisa badiyaan kow dee wax lagu wardiyo horta qur-aanka waxyaaba ugu fadli badan ah oo waa kii xadiidka nebigu ku tilmaamayay qur-aanka xaraf xaraf baa loo tirinayaa maxay akhriskiisa alif ba ta tha alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin saasaa lagugu tirinaya 140 ay faatixadu ka koobantahe xaraf macnaheedu waxa weeyaan 1,000 iyo dhowr boqol oo ajar aad yeelanaysa markaad faatixada qura akhrido idan qur-aanku wax lagu wardiyo buu u fadli badan yahay aakhirana wuu shafeecaya walidalik ayaa salafkii ummadda tani waxay xoog ugu dadaali jireen
inay qur-aanka in badan dhameeyaan bisha ramadaan. waxaa laga sheegaa alaswad ibnu yaziid inuu musxafka markiisa caadiga ah 6dii habeenba mar dhamayn jiray, ramadaan hadday soo gashana 3dii habeenba mar buu dhamayn jiray bay yidhaahdaan. haddii 10ka dambe soo galana habeen kasta mar buu dhamayn jiray. yacni waktiga caadiga ah subxii qur-aanka buu ku dhamayn jiray, ramadaanna 3dii habeenba mar buu dhamayn jiray, 10ka habeenee dambena habeenkiiba mar buu dhamayn jiray. imaamu shaafici isaga waxaanad malaynayn baa laga sheegi jiray 60 khatmo buu akhriyi jiray bay yidhaahdaan. imaamu madhabkan shaaficiyada soomaalidu haysataa 60 khatmo ayuu ramadaanta akhriyi jiray bay yidhahdeen. 60 goor buu dhamayn jiray. dadminis habeen iyo maalin kasta 2 jeer 60 khatmuu dhamayn jiray. waa maxay? waa wax hayru caadiya. waa haddaas oo kii xadiidku soo arooray nahyiga uu nebigu u diiday cabdillaahi bn camr ibn caas 3 wax ka badan. alxaafid ibnu xajar, alxaafid ibnu rajab oo iswaafajinaya wuxuu leeyahay ana الnahya can qira'aةi الqur'ani fi aqali min 3 inama huwa calى اlwajhi اlmuctaad. 3 habeen ka yar inaan qur-aanka lagu dhammaynin waa wejiga muctaadka ah. ama fi اlamaakin اlfaadila ka maka liman dakhalaha aw fi اlawqaati اlfaadila ka shahri ramadaana wاlcashra minhu falaa yukrahu وعalayhi camalu slf buu leeyahy. wuxuu leeyahay alxaafid ibnu rajab raxmat ullaahi calayh, qiraa'ada caadiga u qofka muslimkii sanadkiisa caadiga akhrisanaya ma fiicna 3 ka yar inuu ku dhameeyo. de inaad ku tadaburto oo u fiirsataa baa roob. amaa buu leeyahy kaasi waa wejiga muctaadkee haddii aad amaakinta faadilka a tagto, maalan makoo kale a tagto aad in yar joogayso, ama awqaadda faadilkii ay soo gasho sida bisha ramadaan oo kale ama 10ka cashe ugu dambeeyo kale, karaahiya maaha buu leeyahy inaad ka badisid oo 3 ka yar inaad ku dhamaysid. sidaasaanu ku dareeray buu leeyahy camalkii salafka saalixa. yaan idinku badinin hadalka, waa intii culammadu idiin sheegaysay in baan ina ku celiyey anigoo raba uun maadaama ay maanta 21 ahayd oo habeenba tegey, laga yaabo inay 8 hadhay ama 9 hadday u badato, inaan idin dhiiri geliyo si aakhiradiina iyo xoogsigiina iyo camalkiina wanaagsan u derdergelisaan oo uga dheeraataanna wixii dunuuba iyo wixii mubaaxaat ah. dembi isaga maba hadal hayne, waxyaabihii mubaaxa iska ahaa ee sheekadii iyo warkii badnaa iyo hurdadii badnayd iyo waxaa intaad soo yarayso, bal 8 habeene hadhay ama 9 habeene hadhay ragga intaynu iska dhigno raga bal raggii hore aan ka daba tagno. salafil umma iyo say u dhaqmi jireen oo tasbiix, taxmiid, tahliil, laa xawla walaa quwata ila billah, salliga nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam, qur-aan akhris iyo wixii la mida salaad aan isku dayna inaan badinno. warkaygu galabta intaas buu ku dhan yahay. salى اllahuma calى muxamadi wعalى alihi وصaxbihi waslm walxamdu lilah.